sawirkan waxaa sameeyey ninkan cadaanka aad arkaysaan oo markaa berbere tegay December 1902 isagoo markaa sawir runtii cunsurinimo oo markaa bahdilay ka sameeyey markaa ummadda Soomaaliyeed dabcan magaalada berbere markaa xilliga uu tegay maruu kasii baxayay buu wuxuu yiri anigoo berbere kasii tegay amba ka baxayo ka boqolaya ayaa waxaan koray markabka dushiisa oo markaa sibal markaa aan xeebaha Soomaaliyeed aan telescope-kan powerful telescope-kan ugu eego dabcan markaa isagoo telescope isticmaalaya ayuu markaa sawirkan uu ka soo qaatay inuu yani xeebaha iyo dadka ku arkay deegaanka laakiinse waa sawir uun dacaayad iyo cunsurinimo oo markaa dadka cadaanka Ingiriiska uu ninkanu ka mid yahay qaybo ka mid ah ay ka sameeyeen dadka madowga ay markaa berbere ay ku arkeen ama dadka Soomaaliyeed isagoo markaa dacaayadda waxa uga sii daran cadhada uu markaa halkan ku qoray arrimo cadho leh uu markaa uu leeyahay waxaa kaloo markaa berbere tagay jirtay in markaa uu socday iska caabintii rebellion Maadmila rebellion iska caabintii Sayid Maxamed oo markaa dabcan dhulka baadiyaha uu ku jiray buu leeyahay taasoo wuxuu yiri made blood taasoo markaa dhiigga igu karisay oo markaa yani sideeba yani boqortooyada ay markaa uga soo horjeesan karaan dad madow oo iska sida daanyarta oo kale ah marka waxyaabaha runtii waxyaabo la yaab leh uu ku leeyahay waxa la yaab leh sida leefiska waa ciidamada Soomaalida raaciyada oo ahayd Ingiriiska ay qorteen oo markaa uu ku leeyahay laftirkooda disorganized ahayd oo markaa aan ciidamo aan la tababarin ahaa marka wuxuu ku leeyahay tan waa cadayn murugo leh oo markaa sida ma garanaysaa aynan controlkeenu uu daciif u yahay oo markaa boqortooyadu ayna dhulka Somaliland u wada maamulin oo markaa dhanka kale uga jeeday ay daraawiishta iyo Sayid Maxamed inooga haystaan marka xagna marka loo eego wuxuu dawladdiisu dhaliilaya uu leeyahay waxa weeye waa daciifnimo inay magaranaysa dhulkeena waa dhulka ay sheeganayeen Somaliland marka iyagu haysteen inaynan wada gaadhin oo markaa iska caabin ay jirto Maadmila wadaadkii wallahi waa Sayid Maxamed oo markaa iska caabin nagu sameynayo sidoo kale uu leeyahay magaranaysa dawladdeenu gacan adag kuma wada hayso dhulkoo dhan marka wuxuu ku leeyahay dhiigayba igu kicisay marka waxa weeye si marka loo eego cunsurnimada marka laga tago waxa weeye kibirka iyo isla weynida dadka magaranaysa qabka Ingiriiska ku jira iyo cunsurnimada sawirro la halmaalo oo markaana wuxuu kasii sameeyey wadanka Uganda South Africa oo markaa isna safar u aadayna waa jirtay iyo wadamo kale oo Afrikaan oo safarkiisa kusii maray oo markaa Ingiriisku maamulayay marka sawiradan waa sawirada dadka cadaanka ay markaa ku bahdilayaan dadka madowga ee markaa ay guumaysanayeen iyagoo ka dhaadhicinaya caalamka in magaranaysa ay ku faraxsan yihiin sida arkayso halkan waa smiling oo magaranaysa baalkeeda shaqashaqaleeyay muusiga oo markaa inaga dad jungle-ka ka yimi oo cawaana inaga dhigaya oo kale inaynu nahay sidaas leeg magaranaysa mentality-gii guumaystuuga tagay waxa kamid ah beridhowito markaa toga oo barkadle la dhaho malaha dhanka gobolada waqooyi galbeed oo markaa koonfurta kaga beegan berbera oo markaa naag cadaan oo touristi ay maraysay oo markaa nin askari Somaliland oo dhabar ku qaadiyay iyadoo isagoo yani si daacad u caawinaya islaha toga yeena biyuhu wax yeelin waana mentality-gu dadka guumaysta Ingiriisku kaga tagay khaasatan gobolada waqooyi iyadoo sidan oo kale xilligii uu Ingiriisku joogay dadka loo bahdilayay naagtan kaligeed maaha oo boqolaal sano ka hor amba xilliga gumaystu uu joogay waatan naag cadaan oo markaa iyaduna meelan berbere ka fogeyno magaalada Bullaxaar markaa 1888 bishii April inay ahayd baan filayaa naag cadaan oo timi oo markaa iyagana dadka sidaa u adoonsanaysa marka waxyaabihii gumaystu ka tagay baa mar kale markaa soo noqonaya dabcan markan waxay ahayd 2024 sanadka 2024 marka dadka cadaanka ay waxa weeye dad magaranaysa dacaayadaha iyo stereotype-ka dadka madowga ka sameynayay stereotype-kaasoo ku salaysan true stories oo marka waxyaabo dhab u dhacaya marka dadka badankooduna runtii ma fahansana gumaysiga iyo aafooyinka marka ummadda Soomaaliyeed ku reebay intaas waxa sii dheer dadkii dhibaatooyinka geystay ayaaba la sii jeceliyay oo marka dadka cadaanka ay dadka madowga dhibaatooyinka midmirka loo soo qaadan karo tusaalayaasha loo soo qaadan karo dadkii dhibta geystay baa la sii jeceliyay oo iyagii ma garanaysa dhibkay sameeyeen ba iska badaa in la sii jeceliyay xataa qayb baabada firsanba marka waa aafooyinka ma garanaysa gumaystu kaga tagay geyga Soomaaliyeed